kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada ku xiran Geeslab official. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa baraangii lagu sameeyay Liibaan Aadan Cali Liicaato iyo marwadiisa Sumaya. barnaamijkan intaan gudigalin ka hor nala daawada. daawadayaal muuqaalkaas waa aragteen oo naxdinta badnaa. maxay diinta islaamka ay ka qabtaa barangi yaa soo awaawulay barnaamijka barangiga xaguu ka imaaday. barnaamijkaas oo faahfaahsan ayaa ku arki doontaan barnaamijkeena. soo dhawow Sheekh Umal. barangiga dhalay barangi shaydaan baa dhalay waa garti maalin walbana magac cusub iyo barnaamij cusub buu bini'aadamka u keenaya. نعم gaaladan waxyaalahan soo alifayay waa shayaatiinul insi waay sooma shayaatiinul insi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhruf alqowl. gaalada shayaatiinta jinka ah iyo kuwa insiga ah way isu waxyoonayaan, ayagaa isla shaqaynaya sida qur-aanku inoo sheegay. barnaamijta shayaadiinta jinku soo diyaariyaan waxay u gudbinayaan kuwa la shaqeeya ee bini'aadamka ee gaalada iyo munaafiqiinta ah, iyagaasina bini'aadamkii kale u gudbinayaan. waxyaalahani marka wax duruqdii shaydaanko lagu lumay waaye. soo garan haddii maadsi loola jeedo masaladu waxaan ila qoson ay yidhaahdaan ay tahayna ayadana waxa weeyaan muxuu ahay waxaa ku jira fuxshi badan baa ku jira. haddii ay waxyaalahan kale ka sheekaynaysta uu yahayna waa kaan ka soo hadalay oo nabigeena wakiilaha sallallahu alayhi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalaami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shayt. yani murtida anbiyadii hore laga soo gaaray ee la kala dhaxlay waxaa ka mid ah haddaadan xishoonin wax kasta samee waxaad doonto samee. ruux hadduusan xishood lahayn oo damiir lahayn wax kasta waa ka suuroobaan. adiga ama fal ku muuji ama hadal ku muuji. masalada labaad waxa weeye xumaanta iyo dhaqan xumadu in banaanka loola soo baxo, miidiyaha la geliyo, social mediaha lala wadaago, bulshada la hor keeno iyo markay qarsoontahay way kala weynta. nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam muxuu ahaa kullu ummati mu'afa illa al-mujahiruun. ummadaydo dhan waa cafi buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay waa caafinaya ilaa kuwa xumaanta la jahra mooyee. xumaanta markaad banaanka ula soo baxdo oo miidiyaha soo geliso oo ummadda la wadaagto inta ay gaadhay inta ku dambaabtay fuxshigeedu waa ballaaran, dambigeeduna waa ballaaran. ma garata inaan lagu cafinina way u badan tahay naar aad ku gasho. marka waxyaalaha noocaas oo kale waa dhaqan xumada bulshada ku soo kordhay, loona baahan yahay in aad looga taxadiro lana dagaalamo. bulshada, culimada, aqoon-yahanka, yani waxa weeye waxyaalaha bulshada dhaqan guurinta ku ah si wada jir in looga hortago u baahan tahay runtii. daawadayaal waad maqasheen ayaan u maleynayaa. yani kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo joogo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. marka barnaamijkan iyo barnaamij badan waxaad ku daawan doontaan Geeslab official. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.